sheekhay dadka bini'aadamku waxay haystaan ma arkaan nimcad buu ilaahay siiyey caafimaad buu ilaahay siiyey waxa uu siiyey mataqaanaa xoogaa lacag ama shaqo siiyey laakiin ma arkaan waxay arkaan kaliya qofka maad aragtay ka sareeya ama qofka maad aragtay horumar kala sameeyay ayuu qofku ku mashquulsan yahay maxay diinteenu ka qabtaa qofka lagama yaabo marna noloshiisa inuu ku raaxaysto hadduu ka fakarayo waxyaabaha ka maqan oo kaliya inta yar aad haysatid sir ayaa ku jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala yani uu kuu siiyey xikmadiisa ayuu kugu siiyey inta kale kaa maqan soomaan xikmad kale ayaa jirta lagaaga qaaday marnaha isbarbardhiga ku samayna qofka kale noloshiisa mushaharka kale mobilkaaga kale gaariga kale xaaska kale caruurta kale waxa ugu adag noloshan waxay tahay waa inaad iska dhigtid qof adiga ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala sida kuuma abuurinba adiga ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuuray noqo qofka adiga aad tahay marnaha xiranin dhar qof kale waa arin yani aad iyo aad u adag oo how qofka adiga aad tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celi fiiri inta nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey waxaad fiirisaa dadka ka hooseeyo iyo wixii la mid ah oo dhan nicmo iyo qiimo waxaa la dareemaa marka ay maqan tahay dheh alxamdulilah